Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada qaybteena saddexaad ee dawooyinka cardiovascular drugska. Qaybteena saddexaad waxaynu ku eegi doonaa dawooyinka loo yaqaano beta blockers. Dawooyinkan beta blockerska loo yaqaano class memberka waxaa xubin ka ah ama waxaa tusaale u ah dawooyinkan atenolol, carfidolol, labetalol, metoprolol, propranolol, timolol, esmolol iyo kuwo aad u fara badan. Inta way ka fara badan yihiin. Dawooyinkan guud ahaan waxay ku dhamaadaan OL ama olol. Haddii dawooyin aad aragto olol ku dhamaada oo loo isticmaalo wadnaha waa beta blockers. Waxay ku dhamaadaan olol. Dawooyinkan beta blockerska marka laga sheekeynayo haddii aan ku horeeyo guud ahaan in yaroo hinti ah blood pressureka marka laga sheekeynayo ama cadaadiska dhiigga waxa kantaroola laba system ayaa ugu muhiimsan. Labada system ee ugu muhiimsan ee haddii dhiig blood pressurekeenu kor u kaco ama haddii uu hoos u dhaco si maskaxda uga soo jawaabto waxaa jira laba system. Labadaas systemna waxay kala yihiin baroreceptorka waxa loo yaqaano iyo sidoo kale RAS systemka ama renin systemka. Renin systemka muhiimadiisa iyo ahmiyadiisu waa in blood pressureka kor loo qaado. Si haddaba kor loo qaado waxaa ka howlgala renin enzymekii la odhan jiray ama angiotensin receptor ayaa ka howlgala. Sidoo kale baroreceptorku waa mid ka mid ah receptorada ku yaala wadnaha waxayna ka tirsan yihiin xubnaha ugu muhiimsan ama neerfyada ugu muhiimsan ee kantaroola blood pressureka. Marka beta waa mid ka mid ah receptorada kala duwan ee jidhka aadamaha ku yaala waxaana jira beta 1, beta 2 iyo beta 3. Mid walibana shaqo u gaar ah bay jidhkeena ka qabataa. Beta 1ka inta badan waxaa laga helaa wadnaha iyo sidoo kale kelyaha. Beta 1 waxaa laga helaa wadnaha iyo sidoo kale kelyaha. Meesha beta 2ga laga helo respiratory systemka ama habdhiska neefmareenka ama habdhiska neefsiga. Haddaba beta 1 shaqada ay wadnaha iyo ka qabato kelyaha waa maxay? Beta 1ku waxay kordhisaa qaraaca wadnaha. Sidoo kale beta 1ka kelyaha laga helo waxay dardar gelisaa RAS systemka ama angiotensin conversionkiisa ayaabay dardar gelisaa. Saa la ajligeed labaduba betada ka howlgalaysa wadnaha iyo kelyuhuba ahmiyadda guud ee ay ka qabato kelyaha waa inay kor u qaaddo reabsorptionka iyadoo dardar gelinaysa aldosterone systemka ama aldosterone secretionka. Sidoo kale beta 1 waxay ka howlgashaa baan nidhi wadnaha waxay kor u qaadaa heartbeat ama pulse rateka waxa loo yaqaano. Qaraaca wadnaha ayaabay kor u qaadaa. Haddaba si uusan qaraaca wadnuhu kor ugu kicin waa in la joojiyo beta 1ka. Sidoo kale waxaan nidhi beta 2 waxaa laga helaa habdhiska neefmareenka ama respiratory systemka. Respiratory systemka beta 2du shaqada ay ka qabato waa maxay? Waa waxa loo yaqaano bronchoconstriction inay tuumbooyinka yaryar ee hawadu dhex marto ee ku yaala lungiga ama sanbabada ay yarayso. Isla fahmay? Beta 1 waxaa laga helaa kelyaha iyo wadnaha. Wadnaha kor bay u qaadaa qaraaciisa, kelyahana waxay kor u qaadaa blood pressureka iyadoo blood volumeka kor u qaadaysa. Beta 2 waxaa laga helaa respiratory systemka. Waxay shaqadeedu tahay ama haddii beta 2da la dardar geliyo shaqadeedu waa maxay? Waa in ay sababto bronchodilation. Erigii hore waan qalday. Beta 2 waxay sababaysaa bronchodilation. Marka dawooyinkan beta blockerska loo yaqaano waxaa jira
qaar la yidhaahdo selective iyo qaar la yidhaahdo non-selective. Selectiveku waa dawooyinka ku kooban beta 1-ka oo keliya ee joojiya shaqada beta 1-ka. Laakiin haddii la yidhaahdo non-selective waa dawooyin ka howlgala beta 1-ka iyo beta 2-gaba. Beta 1-ka marka ay xidhaan waxay hoos u dhigayaan heart rate-ka, sidoo kale waxay hoos u dhigayaan blood pressure-ka. Meesha beta 2-da marka ay xidhaan ay sababayaan respiratory depression or what we call bronchoconstriction. Tuumbooyinka wadnaha ayaabay yareynayaan. Saalaajligeed bukaanada dawooyinkan qaadanaya waa had iyo jeer markastood bukaankaaga dawo siinayso xaaladda aad ka daweynayso maahine xaaladda kale ee riskiga ay ku noqon karaan dawooyinkan in aad ka fikirto ayaaba lagama maarmaan ah. Saalaajligeed hanu kala soocano dawooyinkan. Cardioselective waa dawooyinka u go'an keliya wadnaha ee aanan tegin habdhiska neef-mareenka. Dawooyinkan waxaa ka mid ah atenolol, esmolol, metoprolol, bisoprolol. Kuwani waa kuwa toos uga howlgala wadnaha oo blood pressure-ka iyo heart rate-kaba hoos u dhiga. Non-selective-ka waxaa ka mid ah propranolol, nadolol, labetalol iyo timolol. Dawooyinkaas baa ka mid ah. Kuwo kalena waa ay jiraan. Marka farqiga u dhexeeya cardioselective iyo non-selective-ka markaynu ogaano aan idhaahno cardioselective-ku waa kuwo u gaar ah wadnaha. Non-selective-kuna waa kuwo ka howlgala wadnaha iyo sidoo kale sanbabada. Bukaanka haddii uu qabo dhiig-kar keli ah waxaa ku habboon dawooyinkan dhammaantood. Haddii uu qabo dhiig-kar selective-ka iyo non-selective-kaba waa la siin karaa, balse haddii uu dhiig-karkiisa u raaco respiratory depression-ka cudurrada keena ee ay ka mid yihiin COPD ama chronic obstructive pulmonary disease ama asthma xanuunka loo yaqaano ee xiiqda ah, bukaanka waxaa keliya la siinayaa cardioselective-ka. Haddii aynu siino non-selective-ka waxay ku sababayaan bukaankaas in neef-qabadku uu ku siyaado oo ay sababaan bronchoconstriction. Intaas inaad ogaato weeyaan difference-ga ama farqiga u dhexeeya cardioselective iyo non-selective. Bukaanka la siin karo iyo bukaanka aanan la siin karin. Indication-ka dawooyinkan beta blockers-ka waa maxay? Waxaa ka mid ah hypertension-ka, post-myocardial infarction iyo angina. Dhammaantoodba waa cudurro ku dhaca wadnaha. Side effect-ga ay keeni karaan beta blockers-ka waxaa ka mid ah postural hypotension, qofku inuu jooga ka dhaco, especially gaar ahaan in blood pressure-kiisu inuu hoos u dhaco. Gaar ahaan doosaska ugu horeeya ayaa la yidhaahdaa bilow markuu qofku yahay inuu sariirta joogo weeyaan markuu qaadanayo dawooyinkan beta blockers-ka iyo dawooyin kale. Sidoo kale waxay sababaan bradycardia, qaraaca wadnuhu inuu hoos u dhaco. Sidoo kale waxa ay sababi karaan cold extremities inay adimadu qofka qaboobaan. Dhammaantoodba waa ay sababi karaan. Sidoo kale mechanism of action-ka habka ay u howlgalaan dawooyinkani waa maxay? Kow, they block the response of beta-adrenergic stimulation that is increase the heart rate and the blood pressure. Waxay dawooyinkani xidhaan receptor-ka beta-adrenergic receptor-ka ku yaala wadnaha, kaasoo ahmiyadiisu ay tahay inuu qaraaca wadnaha kor u qaado, blood pressure-kana kor u qaado. Marka dawooyinkani way joojinayaan intaasba. Sidoo kale dawooyinkan waxay la mid yihiin dawooyinkii hore oo waa laga mamnuucay pregnancy woman-ka waa laga mamnuucay. Haweeneydu hadday uur leedahay dawooyinkan lama siin karo. Interaction-ka dawooyinka aanan laga qaadan karin si guud hore waan usoo sheegnay, haddana waa isxasuusin. Dawooyin isku group ah, isku koox ah lagama qaadan karo laba dawo oo kala magac duwan ama kala duwan. Tusaale ahaan atenolol
iyo propranolol waa laba dawo waana isku beta blockers bukaanka lama wada siin karo. Sidoo kale dawooyinkan inta badan waxaa mamnuuc ah in lala qaato dawooyinka ay ka mid yihiin diltiazem iyo dawadan kale ee verapamil oo ka mid ah laba dawo oo kooxda calcium channel blockers oo aynu baran doono sababtoo ah waxay kordhinayaan dawooyinkani waxaa loo yaqaano bradycardia qaraaca wadnuhu inuu toos hoos u dhaco oo uu aad u liito oo qaraaca wadnuhu qofka uu hoos u dhaco ayaabay sababayaan. Sidaa laajligeed bukaanada lama siin karo beta blocker mid ka mid ah with diltiazem ama verapamil. Guud ahaan waxaynu kasoo gudubnay dhammaan beta blockerska metoprolol, carvedilol, atenolol iyo qaar kaloo fara badan. Cashirkeena beta blockerskuna intaas ayuu ku egyahay. Haddii aad wax su'aala comment aad haysaan insha allahu tacaala waa nala soo wadaagay. Mahadsanid. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.